Camaar Siin waxa uu ahaa muwaadin Suuriyaan ah oo ganacsade ah oo lahaa warshad samaysa dharka. Ninkan ayaa guul weyn ka gaaray iyo horumar ganacsigaas intii uu ku sugnaa Syria. Camaar Siin wuxuu ahaa ganacsade si aad ah looga yaqaan guud ahaan Syria. Wuxuu ganacsigaas ku soo jiray muddo 35 sano ah. Laakiin wax walba waxay isbedeleen markii uu kacdoonka ka bilowday Syria, waxaana gabi ahaan dhulka galay oo dhumay ganacsigii iyo hantidii uu Camaar soo tabcayay 35 sano. Waxaa burburay oo gabi ahaanba dhulka galay warshadii Camaar. Xaalka Syriana waxa uu noqday mid sii xumaaday oo halis ah. Balse intaan u gudagalin faahfaahinta sheekadan, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir, gambaleelka furo, muuqaalka like saar, lana sii wadaag asxaabtaada. Mahadsanidin. Camaar iyo qoyskiisa waxay go'aansadeen in ay boorso ku ritaan xasuusta wadankooda una safraan Mareykanka. Camaar iyo xaaskiisa waxay gaareen Mareykanka oo ay dib u dejin ka heleen si ay halkaas nolol cusub uga bilaabaan. Markii ugu horreysay, Camaar iyo xaaskiisa waxay isku dayeen in ay Mareykanka dib uga unkaan shaqadii samaynta dharka, laakiin arrintaas Mareykanka waxay ka tahay mustaxiil ama wax aan macquul ahayn. Laakiin waxaa badbaadisay oo meel uusan filanayn uga soo baxday xaaskiisa si aad ah u taqiinay karinta cuntada. Naahid oo ahayd xaaska Camaar ayaa saygeeda u soo bandhigtay fikrad ah in ay ka faa'iidaystaan mawhibadeeda cunto karinta. Intaas kadib, labadooda waxay go'aansadeen in ay bilaabaan shaqo cusub, waddan cusubna ka bilaabaan. Camaar iyo Naahid waxay guda galeen fulinta mashruucooda. Waxay la kulmeen dhibaatooyin badan bilowgii. Ma aysan helin maalgelin, xitaa dayn. Daraasado laga sameeyay gudaha Mareykanka waxay tilmaamayeen in 80% maqaayadaha ay fashilmaan isla markaasna musallifaan. Waxayna taas walwal iyo cadaadis ku sii kordhisay qoyskan ka soo qaxay dalkoodii Syria. Balse ugu dambeyn, labadan lamaane waxay gadaal iska mariyeen kana gudbeen dhibaatooyinkaas. Waxayna fureen maqaaxi yar balse si aad ah loo habeeyay. Camaar iyo xaaskiisa waxay go'aansadeen inay maqaayadooda u soo bandhigaan si ka duwan maqaayadaha kale. Waxay ka dhigeen maqaaxi ay wada leeyihiin dadka raashinka ka soo doonta. Naahid waxay ahayd mid samaysa raashinka, waxayna u karin jirtay sida ay u kariso raashinka gurigeeda. Sidoo kale waxay cuntada ku karin jirtay caleenta geedaha. Marka ay samayso quraacda oo ay miiska soo saarto, waxaad moodaa quraac ay u diyaarisay gurigeeda, waana taas midda soo jiidatay inta badan qowmiyadaha Carabta ee ku nool deegaankooda. Inta badan raashinka ay diyaariso waxay ahaayeen raashinka Carabta, gaar ahaan raashinka laga cuno wadankooda Syria. Dhanka kale, Camaar ayaa isna qaabilsanaa qaybinta cuntada iyo lacag ka aruurinta kastamka. 1 sano iyo bar gudahooda, mashruuca labadan lamaane waxa uu noqday mid si aad ah u guulaystay. Sidoo kale, maqaaxidooda waxay soo jiidatay qaar ka mid ah caddaanka Mareykanka, waxayna ka mid noqdeen kliyantiga sida joogtada ah uga xiran maqaayadooda. Sidoo kale, labadan lamaane waxyaabaha mashruucooda in uu guulaysto sababta u ah waxaa ka mid ahaa in ay soo alifeen hab cusub oo ah in isbuuciiba mar kliyantiga Carabta ah ee ku xiran ay qoysaskooda u soo kaxaystaan maqaaxida, isla markaasna ku wada cunteeyaan hal miis. Dhanka kale, gabar ay dhaleen oo ku noolayd waddanka Imaaraadka ayaa dhankeeda hawsha ka waday. Waxayna inta badan suuqgeyn u samayn jirtay social mediaha, gaar ahaan Facebooka iyo Instagramka. Waxayna ku faafin jirtay sawirada macluumaadka maqaayadda labadeeda waalid. Halkaas dad badan ayaa ka soo raaci jiray. Nala wadaag fikirkaada. Ma aaminsan tahay fikradda ah in doorashada xaaska wanaagsan ay maalin uun ku noqon doonto hub wanaagsan?